اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. waxaan isku dayi doonaa daris kooban in sha allahu tacaala oo ku saabsan طرق min طرق العilm, siiba masalada la yidhaahdo alqiraa'a, oo wakhtiyadan dambe waxaad moodaa waxna waa la akhriyaa oo waa la dhigaa, haddana ma soo baxaan dad طulaab اlcilmi xaqiiqiina ama wax lama barto. aqoontii meelaha lagu waday cilmi dhagood bay dhaafi weyday, wuxuu dadku dhagahan ka dhagaysto. marka waxaan rabaa inaan waxoogaa soo bandhigo ku saabsiisan salafi اlumma ama ummaddii muslimiinta ahayd culamadeedii iyo dadkeedii hore, iyo bal siduu ahaan jiray wax akhriskooda ama wax akhriska say u qiimeyn jireen ama say uga faa'iideyn jireen. waynu barbar dhigno wadcigan casriga ee maanta lagu nool yahay iyo sida dadku ay u isticmaaleen, siiba dadka muslimiinta ama caalam ulislaami. ugu horeyn waxaynu naqaanaa qur-aanka ilaahay subxaanaه wa tacaala wixii ugu horeeyey uu soo dejiyey, say culamaa اlxadiis tilmaamayaan awal maa nazl oo qur-aana waxay ku tilmaamaan gaaru lxiraa markuu ku jiray inay ku soo degtay suuradda iqra bismi rabbika aladii khalaq. ilaahay uu nebi moxamed leeyay calayhi الsalaatu wasalaam iqra bismi rabbik, akhri la leeyay nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam. qur-aanka iyo waxyiga iyo waxaa lagu soo dejiyey akhri, bal xaal aad kaalmaysanayso ama ku bilaabanayso isimka rabbiga, ama akhri adigoo magaca rabbiga ku akrinaya, yacni idankiisa adigoo ku akrinaya, rabbi subxaanaه wa tacaala uu ku wakiishay. ama akhri ilaahay magaciisa laftiisa akhri. saddexda tafsiir baa sheekh catiya salim fii adwaaءi اlbayaan uu saaraya. ayan kaanat shanta aayadood ee ugu horeysa ilaahay subxaanaه wa tacaala laba goor buu ereyga iqra'a soo celiyey. iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa اlinsaana min calaq, iqra warabuka alakram aladii callama biاlqalm callama اlinsaana maa lam yaclam. saddex shay baa rabbi subxaanaه wa tacaala halkan uu ku tilmaamaya. mid waa masalaة اlqiraa'a oo la soo celceliyey, oo ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala marka hore iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa اlinsaana min calaq. mar kale la leeyahay iqra warabuka alakram. mar saddexaad la leeyahay aladii callama biاlqalm callama اlinsaana maa lam yaclam. laba shay oo kale oo cilmiga ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu mano sheeganaya dadka, iyo inuu qalamka baray inay wax ku qoraan. suurad kaleo qur-aanka ka mid ah rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa qalinkaasi wax lagu qorayo, nuun wاlqalmi wamaa yasturuun. qalinka iyo waxay qorayaan malaa'igtu baan ku dhaartay baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala. suwarka kale ee isla makiga ee weliba dhowrkaa sannadood ee ugu horeeya soo degay, faqra-uu maa tayasara min alqur'aanka baa ka mid ah. idan markaad eegto qur-aanka wixii ugu horeeyey nebiga kusoo dega calayhi الsalaatu wasalaam waxay ahaayeen wax ka waramaya cilmi iyo qiraa'o iyo qalim, iyadoo la og yahay bii-ada uu ku soo degtay inay ahayd abcad bi-a can اlqiraa'ati wاlqalami wاlcilm. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dadkii uu la noolaa iyo bulshadii uu ka dhashay waxay dhahdaan min mucjizaat bay ka mid tahay in ummad aan qalinku qiimo ugu fadhinin oo cilmigu qiimo ugu fadhinin oo jaahiliye ku dhex nool, waxa koowaadee loo sheega uu noqdo qalimka iyo wax qorkiisa looga waramo. oo hadduu ahaan lahayd meel haqaafa taalloo cilmi yaallaan oo caynkan oo laga waramo markaa qalin iyo wixii la nooca, waxaa la odhan kari lahaa de waa min waxyi lbi-a, waa wixii environmentka laga ogaaday. laakiin waa environment dadka wax qoraabo fara ku tiris yihiin, jahliguu tiro badan yahay, aqoone aanay jirin. waxaad ka garan kartaa inta badan ilaahay subxaanaه wa tacaala ee qur-aanka kusoo celceliyey masأalaة اlcilmi iyo fawaa'idda ku jirta iyo waxaasi
ma rabo markaa baabka inaan ka warramo laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo qiraa'adu ama wax akhrinta ummadda wax akhridaa bay idhahdaan waa ummad koraysa ama kor u socota. maanta umamka horukacooda iyo horumarkooda waxyaabaa lagu qiimeeyo ee muashiraadka duwalka horu maray ama horumarka waxaan la yidhahdaba lagu qiimeeya waxaa ka mid ah ummadda iyo inta ay wax akhrido, illiteracygu intuu ku leegyahay. waxaa la yidhahdaa ummaddaasi boqolkiiba intaasaa wax akhrida. idan sida ay u kala badan yihiin umamka qaar baa waxaa la yidhahdaa hadda cid aan wax akhrinin ma joogto. walidaalika waxay tilmaamaysaa baa la leeyahay ummadda tani thaqaafa inay leedahay ama aqoonta waxaa la yidhahdaa inay qiimo agteeda ku leedahay. umamku maanta dunida waxay u kala horumarsan yihin bay yidhaahdaan sida ay qiraa'ada iyo cilmiga hantida ay ku bixiyaan u kala badan tahay. umamka maanta dunida ka taliya waxbarashada iyo waxa ku saabsan GBD-ga waddanka uu leeyahay inta ugu badan bay ku bixiyaan, halka dunida saddexaad laga yaabo 1% inuu noqdo waxyaabahay u qorsheeyaan inuu ku baxo tacliinta iyo waxa la halka ah. qiraa'adu ayuha alikhwa waxay yidhaahdaan haddii cunadu ay jidhka quudiso wax akhrisku bay dhahaan waa ghadaa ilcuquul, waa caqliga waxyaabaha kobciya. waxaa lagu tilmaamay inuu yahay rafcun liljahli, waa qofka oo iska durkinaya waxgarasho la-aan. waxaa lagu tilmaamaa inay tahay qofka sida wax u qiimeeyo inay ku korodho siday aqoontiisu u badato. waxaa lagu tilmaamaa inay tahay waa naafida ama waa daaqad kaaga furmaysa bay leeyihin cuquusha bini aadamka. qofka wax akrinaya wuxuu akhrinayaa bay leeyihin bini aadamka cuquushiisa wixii ugu fiicnayd ee uu soo saaray. wax akhrisku waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waxaan xuduud iyo zamaantoona lahayn. qofka bay dhahaa cimrigiisu waa wax yar oo tirsan, laakiin qofka wax akhriya waa ziyaada fi lcumri bay dhahdaan, waa qof cumrigiisa kororsanaya, waa ziyaada fi tajriba. waayo waxa aada akhrinaysaa wuxuu kordhinayaa tajaarib qofka kani uu ku helay 10 sannadood buu hal kitaab ku qoray. idan 10 sannadood ee cumriga ka mid ahaa adigu waxaad ku akhriday dhowr saacadood baad waxaad ku heshay 10 sano wax qiimahooda uu joogay in la sameeyo ayaad adigu waxaad ku heshay dhowr saacadood. walidaalika waxaa lagu tilmaamaa zamanku xad ma leh oo waxay leeyihiin aqoontu wax akhrisku waa qofkoo isku dayaya dunida intii maskax soo martay inuu la sheekaysto. cabaaqirat alcaalam maanta markaad maktabaddaa tagtee kutubta islaamiyiinta aada akhrido waxa weeyaan wixii caqli weyn muslimiinta soo maray wixii ay qoreen kaanama aad imaamu shaafici iyo raggii la nooc ahaa la warramayso ama ay ku warramayaan. waxay yidhaahdaan akhrisku waa waxaan makaanku xadaynin ama meeli xadaynin oo dad badan oo aanad la kulmi karteen ama aanad arki karteen baad arkaysa oo aada la fadhiisanaysaa. si kale haddaynu u tilmaamno waagii hore cilmiga shafaaha qura lagu qaadan karayay, inaad qofka u tagto oo aada afkiisa ka soo dhegaysato. laakiin markii ay dadku wixii ay cilmi hayeen waraaqa geliyeen ay gudaha ku qoreen waxaa fududaaday inaad wakti kasta aada dib u heli karto xataa iyadoo aan lahaynin aqoon-yahankii ama sheekhii ama khabiirkii waxa kan qoray iyadoo aan lahaynin in si fudud loo heli karo. ummadda markaa aan abnaadeeda iyo dadkeedu mustawaha aqoontoodu aanu mid kor u socdo ahayn waa ummad bay yidhaahdaan maanta caalamka la joogo aan la socon karaynin. bale caalamkan cusub waxay dhahdaan xataa mustawaha xoogsigu wuxuu ku xidhmay bay yidhaahdeen mustawaha aqooneed ee aada leedahay, oo dadka wax aan akhrinin waxna qorinin shaqooyinka inta usoo hadhay baaba maxduuda bay yidhahdaan. waxaa shaqaba soo hadhay uu qofku qaban karo ayaa wax maxduuda ah. si kale markaan u tilmaamno waxay dhahdaan maanta macaarifta dunidu siday usii badanayso sanad walba bay yidhahdaan aqoonta tan scienska ah maalan 10 to 20% baa aging uu ku dhacaa bay dhahdaan. 10 ilaa 20 ayaa gabowba. haddaad wax akhriyi weydo macnaheedu waxa weeyaan aqoonta aada xambaarsan tahay sanad kasta 10% ka mid ah laga baxay. taa macnaheedu waxa weeyaan
10 sano dhowr iyo 10 sannadood markaad nooshay haddii aanad dib wax u akhrinin macluumaadkaad sidataa waa macluumaad gaboobay oo dunida aan ka soconaynin ama laga shaqaynaynin. walidaalika waxay dhahdaan 30kii sannadood ee ugu dambeeyey aqoonta maanta dunida tallaaba leeyahay 90% waxa la cusboonaysiiyey bay dhahaan 30kii sannadood ee ugu dambeeyey oo dib wax badan ay ku soo kordheen. maadaama arrinku caynkaa tahay xataa caalamka dad yowgii gumaystay markay rabeen dadku inay horumarka ka ilaaliyaan waxay ka ilaaliyeen wax akhriska. matalan waddankan maraykanka la yidhaahda ninka madoowa ku dhaqan markii afrika laga soo raray dad badan oo afrika laga soo raray dad waxna qora waxna akhriya aqoonna labay haayeen siiba qaybtii muslimiinta hayda caalamulislaamiga laga soo raray siiba dad culamaaba xataa ku jiray. markii maraykanka la keenay si loo gumaysto waxaa laga mamnuucay ninka madoobay inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo ama addoon ha noqdo ama xor ha noqdo wuxuu doonaya ha ahaado. waxaa laga reebay haba yaraatee shacabkaas dhammaantii inaanay waxba akhriyi karin waayo waxaa fududaanaysa bay leeyihin in la gumaysan karo ama lahayn karo. haddii dadku aanay waxna akhrinin waxna qorin waxaa fudud in la gumaysan karo. walidaalika baa waxaa loo arkayey maraykanka waagiisii hore ninka madow haddii qiraa'o lagu qabto waxay jariimo qaanuunku uu ciqaabayo. haddii la arko nin madow oo wax akhrinaya waxay jariima qaanuunkuna uu ogol yahay in la ciqaabo. qiraa'adu marka ama wax akhrisku waa micyaarka ama waxa lagu qiimeeyo ummadda horumarkeeda. waxaana yidhahdaa noloshan maanta casrigaa dee la-aanteed maba jirto xataa alqira'a tawdiifiya bay yidhahdaan. waxaad qiyaastaa magaaladan ay degan tihiin oo aan traffic waxaan ku qoran lahayn oo raashinka waxaan ku dul qoran lahayn oo dawada waxaan ku dul qoran lahayn ama se dadku aanay akhriyi karaynin noloshu say noqon lahayd. waxaad qiyaastaa magaaladu aan adresses lahayn. waagii hore dee waxba lagu qori jirin soo maha. waxaad qiyaastaa Toronto aan adress ku qorayn wallahi wax traffic sign aanu qorayn wax raashin ku dul qoray aanu jirin. yani waxay noqon lahayd nolol adag oo sacaba in la noolaan karo. walidaalika waxay yidhahdaan maanta nolosha casriga dambe iyadu qiraa'o la-aantu suurtagalba maaha. haddaba qiraa'adu waxaa ka asala inay tahay cimrigii oo aada ziyaadinayso. ilaahayna subxaanaه wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa cimriga iyo qiimaha uu leeyahy. oo qur-aan badan baa rabbi wuxuu ku dhaaranaya waktiga wالduxى wاleyli ida saja wاlcasri in alinsaana lafii khusr iyo wixii lamid ah. ama ba uu nabigu leeyahy calayh الsalaatu wasalaam qofka maalinta qiyaame ka zuuli maayaan gomadiisu dhulka oo yacni waa la haynayaa ilaa iyo 4 shay la weydiiyo. 4ta shay 2 shay baa cumriga ku saabsiisan. taa macnaheedu waxa weeyaan waxyaabaha ugu fiicane qofku uu cumrigiisa ku xisaab ku isticmaali karaa waa masalat alqiraa'a. waxaan markaa rabaa inaan ka waramo deris kooban oo ku saabsiisan marka koowaad salafi lumma ama dadkeennii hore iyo qiraa'ada siday u arkayeen ama siday u jeclaysanayeen. intaanan kelmaddaasi markaa soo gudbin waxaan tilmaamayaa dhowr shay. kow waktiga waxa ugu fiican ee lagaga faa'iidaystaa waa wax akhris. waxaanay u arkayeen culammadii muslimiinta ahayd qiimaha waktigu uu leeyahay iyo intaajka uu soo saari karo. waxa ugu badan ee lagu soo saara mithaal haddaad maalintii rubuc saac ka yar wax akhrido. rubuc saac intuu leegi rubuc saac more than 10 pages baad akhriyi kartaa. qofka ugu gaabiya qiraa'o qofka ugu gaabiya caadiga ahi maalintii haddaad 10 page akhrido sanadkii misaad akhriyaysa sanadku 365 maalmood soo maahay. waxaad akhriyaysaa 3650. that means akbar mawsuuca ayaad sanad ku dhamayn karaysaa. ugu yaraan
buugga caadiga iyo normalka ahi waa 300 ilaa 300 iyo waxoogaa bage 360 bage meelahaasi ama 400 bage markaad tidhaahdo haddaad maalintii 10 daqiiqo wax akhrinayso macnaheedu waxa weeyaan sanadkii ugu yaraan 10 buug oo noocaasi ama dhowr iyo 10 buug oo noocaasi aad dhamaynayso yani mawsuuca fi cilmi alxadiitha ama mawsuuco في تفسيره أما موسوعة في علم كلاه أيضا لما ينكرتها بمجرد إن هذا قرشيسة إن هذا أخرده محي تبان بيج أما 8 دقيقة دود إن هذا أخرده مالنتي هدي أي واحد برشادو عين كان نقوم كاري لهاي ما كانوا ده أنا وقت كان دي ليه إمي ساد وقت ياد خسارة يسادو مالينسا إمي ساد واحد بعد بران كاري لهاي يعني علماء المسلمين تهري وحلا يقاني وحي هندد موسيعيين موسوعة يعني dad encyclopedia qof wixii la soo qaadaba ka jawaabi kara haday culum diineed tahay bikulli fununiha iyo haday tahay culumtii casrigooda jirtay bikulli fununiha ama astronomy ha noqoto ama geography ha noqoto ama taariikh ha noqoto ama tib ha noqoto ama philosophy ha noqoto ama riyaadaad ha noqoto xisaab ha noqoto waxay doontaa ha noqoto caalimka faqiih ee masaajidka fadhiya wuxuu aan jiray موسوعة متنقلة مكتبة جوريسة وكل الفنون كلجي اللي جهلي كرا سبب كلامنا ما يشيرين ضدك كما عقل بدنين بني آدم كبحسن ما يهين لكن وحي هاي ضد وقتك كفايدية وحي هاي ضد وقت جوده كبحيي إنه وحبرن كرا ما أنت وحي هذا أفريج ضدك عادي جاهي بين هذا وغيران 3 ساعات بتي في داود بين هذا أفريج عادي marka la isku dardaro 3 saacadood waqti ku dhadhow TV daawada haddaad 3 saacadood wax akhri lahayd maalin kasta maxaa soo bixi lahaa yani halka TV-guna dad buu ku bedeli lahayd ay fan ku doonayo ha noqdo waxa soo bixi kari lahaa yani fi khilal 10 سنوات ama fi khilal 15 سنة waxa dunida lagu hayo fan iyo waxa jaahil ka noqon lahayd ma jirin waxa ugu badan waad baran kari lahayd لكن مشكلة تاجني وحويان وحن ضدك كوب بحنين كو وقت قال لك فايدين لبا وحن لحددين هدف قراءة ضدك برد وحبا آخريان لكن وحي آخريان وحن فائدة بدن لحين حلا يابا كل يوم لبا مجلة مسدح جريدة ضد آخريه من سدح فرشان لح بيتشن وكآخريه maalin kasta waxa laga yaabaa waxaan macna badan soo kordhinaynin inuu akhriyo haddii uu hadaf ama qiraa'ada uu akhriya inaanay hadaf lahayn maalinba wixii gacantiisa soo galo inuu iska akhriyo marka maalin mashriq buu jeedaa maalina maghrib buu jeedaa xataa fi culuumi diin طulaab ilcilmigan dambe maalinba kitaab buu iska soo qaadaa iska akhriya idan hadduu hadaf kulumo marka hore oo qofku maxaad wax u akhriyaysaa haddaad garan weydo waa dhibaato qiraa'adku waa kala nooc qiraa'ada mid waa qiraa'a tasliya waqtiga uu qofku caajiso mid uu tasliya ahaan isaga akhriyo maalan kutub waaweyn oo culamo qortay ibn aljawzi maalan markuu ka warramayo alxamqa walmughafaliin ama aladkiyaa ama waa kitaabo dadka inta waalanaya inta nacasiinta abuu kitaab ka qoray inta fariidada inta caqli badan buu kitaab ka qoray waa lilfukaha qofku waqtiga uu daalo inuu iska taalacdo kaasoo kale waa litasliya qiimo badan ma leh laakiin imisaad akhridaa qiraa'atu tafahum watadabbur inaad wax kororsato imisaad si akhridaa qiraa'a iktishaaf kutubta bal inaad dooran karto wax cusub inaad ogaato wuxuu yahay haddii hadafku uu xadidmi waayo qiraa'adu qiimo yeelan mayso inuu hadafku xadidan yahay aada wax baranayso sabirna uu jiro waayo sabir baa noloshuba ilaahi subxaana watacaala wuxuu tilmaamaya wajacalnaa minhum aimata yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yani sabir baa lagu gaadhaa buuna qur-aanku sheegayaa imaamada ama meelaha koreeya waxay yidhaahdaan edison waa thomas edison odaygii nalkan baxaya ee koowaad tijaabiyey maraykanka ahaa edison nin iskuolka laga eriyey ama iskuolku ay u arkeen inuu handicab iyo aanu maskaxdiisa ku fillayn ayuu ahaa laakiin hooyadii la dadaashay
taariikhda maraykankana waa ninka batenka ugu tiro badan le ilaa hadda. waxaan filayaa 1,100 iyo dheeraad buu leeyahay, mise 1,090 meelaha. tiro kun ka badan oo ikhtirac invention buu keligii leeyahay oo u registerida. imika unbaa malaa kuwa indha yar Australia u dhashay iyo meelahaas ka badiyeen 3 kun qaar la hada jira. Edison baa waxay ku yidhaahdeen, Edison muxaawaladii uu nalkan ku sameynayey 1000 muxaawaluu sameeyey. waxay yidhaahdaan 1000 kadib buu guulaystay. laabkiisi yaraaye wixiisi markuu isu geeyey waa tijaabiyey, waa shaqayn weyday, waa ku celiyey, waa shaqayn weyday, waddo kale ku celiyey, waa shaqayn weyday. yacni ninkaa waxaad qiyaastaa inta uu sabrayey inuu 1000 jeer wax tijaabiyo, isla shay qura inuu soo saaro, inuu 1000 jeer tijaabo uu ka qaado, aakhirkii inuu soo saaray nalkan dunidu ay wada ifsanayso oo wakti ay dunidu u baahnayd oo xadaaraduna kordhay, subagii la shidanayayna dunida ku filaan waayey, shidaalkan dee imika la wadaana aanu jirin bay ahayd. bensiinkan iyo waxaanina ma jirin. xaydhii riyuhuna dadka way ku filaan weyday, shamac yar laga samaysanayey. markaas buu nalka kan soo helay inuu nal shidi karo. Edison bay su-aala weydiiyeen, cabqarinimadu imisay tahay, yacni wax gift oo lagu siiyey, imisayse dadaal tahay. markaasuu wuxuu yidhi 1% baa ilhaama buu yidhi, laakiin 99ka kale waa sabir iyo dhidid buu leeyahay. yani inaad u sabirto oo wax akhriskan ama waxaan uu qofku qabanayo inuu sameeyo. markaynu qiraa'o ka waranno, qofku marka uu bilaabayo oo iska adag tahay. maalmaha hore intuu ka fahmayaa yar, intuu akhrii karayaa yar. waa taqaaninoo caruurta marka qiraa'ada la barayo, marka hore waxbuu kiciyaa, marka hal kelmaduu hore u akhrii kari waayaa, marka dambena kelmaduu higaayadiya, kelmad buu akhriyaa, marka dambena 2 3. laakiin dadka inta badani markay halkaa marayaan bay ka hadhaan. laakiin hadda waxaa techniqueska maanta dunida la isbaro waxaa ka mid ah sadarka o dhan inaad mar qura isha ku wada akhrii karto. yani sadarka buugu dacal ilaa dacal mar qura inaad akhrii karto, waa technique la barto. haddaad sadarka mar qura akhrii karto, dee bejka 10ka sadara 10 goor ay ishu ku dhacda ku filan ayaad ku akhrii kartaa. waxa laga yaaba inay hariib kula tahay, hariib maaha. waxaan idinka warrami doonaa qiraa'aadkay hadda iyagu sidaa u sheegayaan, tii culamada muslimiintu inay ka dheereyn jirtaan ka warrami doonaa, iyo say wax u akhriyi jireen muxadisiintu marka aan tilmaamo ayaan wax ka sheegi doonaa. laakiin wax waliba waa mumaarasada. qofku qiraa'adiisu markay badato, suwarka kelimaadkani madaxay degaan, ishu markay ku dhacdaba waa inay maskaxdu soo rogi kartaa sawirka kan. laakiin haddii aanay qiraa'adaadu badnayn, higaayadun bay noqonaysaa inaad waxaan higaayadiso markaad akhrinayso, waayo suuraddan madaxa kuu deganayn. haddayse qofka qiraa'adiisu badato, suuraddan erayada tani ama macnaha kan uu xambaarsanyay madaxuu degaya. hadduu madaxa degana, ishu markay aragtaba waxay maskaxda u sheegaysaa connectionkaasi inuu jiray, dabeetana si fudud buu qofku u fahmi karaa. wuxuu u baahan yahay qiraa'adu si ay macno u samayso in la taqyiidiyo fawaa'ida. mashaakilka ugu badan ee dadku wax la baran waayeen waxaa ka mid ah, waxaa laga yaabaa sheekh bashiir maalin kasta inuu kitaab halkan ku akhriyo. ardada inta dhegaysataa masaajidka fadhida dadku 2 qaybood bay u qaybsan yihiin. qaybi meelaha dambe iskaga tiirsadaan, dhegtay ka dhegaystaan. qaybina kitaabkay soo qaataan, ishay ka eegaan. labada midna ardaynimo maaha. yani ardayga rasmiga ahi ama waxbarashadu waxay yidhaahdaan, waxaad hadda akhrida bay yidhaahdaan, saacad kadib 50% baad ilaabaysa, 24 saac ama 48 saacadood kadibna 80% baad ilaabaysaa bay yidhahdaan. wakti yar kadibna way wada guuraysaa. idan cilmiga dhagoodka aad soo fadhiisatay ee iminka dhegaysatay, haddii hadhow aroorta wax lagaa weydiiyo waxba ka garan maysid. laakiin haddaad wax qortay, fawaa'ida bay yidhahdaan, cilmiga waxa qura ee reebaa bay yidhahdaan waa taqyiid, waa in la qoro. qofku shayga uu qoro maskaxdiisa raad bay ku yeelataa. buug dhan oo aada akhriday, waa kuwan turuqulqira'a ardada marka la baraya waxay baraan, halka buug markaad akhrinayso 2 mid inuu sameeyo nidaam ilbataaqaat, kaadhan inuu samaysto wixii faa'iidaa uu ku qorto.
ama buugga jaldigiisa markuu halkan calaamadiyo buugga jaldigiisa inuu ku qoro masale kasta meeshii buugga uu ka helayay waxay taasi fudaydinaysaa marka uu jaldiga furaba inuu garan karo masaa'ilku buuggan uga baahan o dhami waxay yihiin ama waxay fudaydinaysaa aqoontu maskaxdu ay ku firirsan tahay laakiin keywordska hadday maskaxdu dib u hesho wixii o dhan way xasuusan karaysaa maalan waxbaad aragtay waad ilowday waad xasuusan kari weyday waan ku agmarmariyey war maalintii caynka warninkii hebel miyaad garanay hebelkaasi waa kaad xasuusan kari weyday warninkii caynka waa kaay hebel maalintii aynu la soconay halkaa inaga horyimay failkii baa markaa furmay baad leedahay hawa jaaca waan gartay waxay dhahdaan maskaxdu keywords baa jira haddii ay dib loo shido wixii o dham ay dib usoo noqon karaan ama dib loogu soo celin karo walidalik waxay dhahaan qiraa'adu qiimo ma yeelato haddaan qoraal la soconin qiraa'adu waxaa qiimaha u sameeya waxa weeyaan qofku inuu wax qorayo sidaa ogeed ba ardada waxaa loo tilmaamaa ardaygu classka inaanu iska fadhiisana inuu wax ka qoro wax ka reebo cilmigu sidiisabana haddaad qalin iyo buug sidatana qof waxbaranayaat haddaanad sidanina qof waxbaranaya matid macluumaad iska tiro badan aroortana la ilaabaya bay noqonaysaa walidalik systemkan dambe iminka dadku wax u dhigtaan masaajidka kitaabunbaa ka socda bashiir wax bedelana la heli maayo sheekh bashiir waxaa laga yaabaa 10 sano 20 sanadood buu akrinayay haddana inaan ardayba ka soo bixin ama qof kaloo wax akrinaya aanu ka soo bixin waayo 20 sanadood cilmi dhagooda mar hadday dadku iska dhegaysanayo o baxayay waxaa adkaanaysa cid reebta waxaa la akrinaya bay idhaahdaan waxa roon inuu qofku wuxuu akriyey xasrin kara ama si koobi karo meelaha ishkaalku uu ku jiro oo qiraa'adaadu waa inaad yeelataa ama murshid ama meel wax laga baadho dee imika sheekh google baa idinku filan google.com haddaad wax kasta ku qorto wuu ka jawaabi karaya ishkaal kasta ku haya haddaad ku qorto fi ayi fannin kaan waad soo helaysaa jawaabtoo degdeg oo fudud laakiin sideedaba waxaa la yidhahdaa cilmigu marka koowaad wuxuu ku jiraa bay dhahaan fi butuuni اlkutub aqoontu kutubta gudahooday ku jirtaa laakiin furayaashu waxay ku jiraan baa la yidhaha biaydi اlmucalimiin aw biaydi اlculamaa cilmigu buwaagtu ku qoran yihin laakiin qofku wuxuu u baahan yahy inuu furo helo furuhu waa fani kastoo aad baranayso musطalaxaadkiisa hore terminologigiisa qawaaciddiisa asalka inahaasi haddaad si fiican marka hore u fahamto waad kori kartaa markaa haddiise aad inaha hore u fahmi kari weydo waxaa kugu adkaanaysa inaad hore u korto walidalika ayuha اlikhwa waxyaabaha dadka qiraa'ada ku adkeeya waxaa ka mid ah iyagoo aan tadaruj samaynin ama aan korin ama meel aan loogu talagelin inuu ka bilaabo waxyaabaha se fudaydiya waxaa ka mida bay idhaahdaan inuu qofku ku celceliyo walidalik baa adiibkii masrigii caqaad la odhan jiray baa waxay ka hayeen wuxuu idhaahdaa 3 kitaaboo fiican inaad akrido waxaa ka roon buu yidhaahdaa kitaab fiican inaad 3 jeer akrido yani hal kitaab inaad 3 kitaaboo fiican akrido waxaa ka roon buu leeyahy hal kitaab inaad isaga qura 3 jeer ku celiso yani kulama qiraa'adaadu tikraarkeedu uu bato dadku iminka masaladaasi aad bay ugu yartay kitaabku beri dhegaystay ama beri akriyey wuxuu ku biiraa shalafka lama soo qaadka ah saa daraaddeed waxaa laga yaabaa markaad maktabadda eegto kutubta taalloo dhan inaad wax ka dhegdhegaysatay laakiin midna inaad wax ka garanaynin waayo inuu wax sugmaa waxay ku xidhan tahay bay dhahaan kathratu tikraar inta lagu celceliyo ardaygu classka fadhiya cilmiga soo dhegaystay daanu hadhow ku celcelin inta goora ku celceliyay unbuu sugnaanshihiisu ku xidhan yahi markaan eegno culamadii hore siday u dadaali jireen maalan waxyaabaha keenaya inuu qofku aqoonta si fiican u barto waxaa ka mid a inuu biographiga akriyo siiba nawaabiqdii cilmiga siiba dadkii culamada ee muslimiinta ahaa مثلا haddaan tusaalayaal idin siiyo alkhaiib اlbaghdadiy waa nin caalima oo funuun badan caalim ku ahaa fan اlxadiidna alxaafidu fii casrihi ahaa isagoo baqdaad jooga ayaa waxaa loo sheegay baqdaad inuu soo galay sheekh la yidhahda ismaaciil ibnu axmed الdariir
ismaaciil ibnu axmed الdariir waa kitaabka bukhaari la yidhahda ragga wariyey. kashmeheni ayuu raggii ka wariyey ka mid yahay. markii loo sheegay ayuu wuxuu soo kaxeeyey ardadiisii ama culamo kale ay wada socdeen bay soo raaceen. wadaadkani waa safar, nisaabuur buu ka yimi, makuu ku socdaa. safarkani wuxuu joogayaa habeen ama 2 habeen ama 3 habeen magaalada, waana safar socota. waxa ay rabaan sheekha socotada ah in laga reebo kitaabka bukhaari iyo dhammaantii. bukhaari maca mukararaadkiisa marka lagu daro 7,000 oo xadiis buu ka badan yahay. 7,000 oo xadiis baa waxaa la rabaa in laga reebo qof socoto ah oo safar ku jira. habeenkii koowaad bay u yimaadeen maqribka ilaa salaadii subax ayay ku akhriyeen. yani salaaddii maqrib markii laga baxay bay akhriska bilaabeen. alkhatiib albaqdaadi baa akhrinaya, sheekuna kitaabkiisu haystaa wuu u saxaya, ardada kalena kutubtooday haysataa way saxanaysaa. wixii uu sheekhu markaa tasxiixiyo waa la saxanaya, wixii ishkaal uu ku jiro waa la weydiinaya, waana la dareerinaya, la wadaa. salaaddii maqrib buu bilaabay ilaa salaaddii subax baa la fadhiyey, waa la kala tegey. habeen labaadkii baa laysu yimi, salaaddii maqrib baa la bilaabay ilaa salaaddii subaxee dambea la fadhiyey. maalin saddexaadii goor barqaa baa la yimi, barqadii baa la bilaabay ilaa iyo salaaddii maqrib baa la waday. salaaddii maqrib kadib baa la bilaabay ilaa iyo salaaddii subax baa la waday, waxaana la dhameeyey kitaabkii bukhaariga ahaa. waa 3 jalsadood ayaa waxaa lagu akhriyey mawsuucada imaam albukhaari warinaya 7,000 xadiid ka badan. waxaa lagu akhriyay 3 jalsadood. waxay tilmaamaysaa yani surcat alqira'a way sheegaysaa, qiraa'adoodu say u deg deg badnayd. waxay kaloo sheegaysaa siday u danaynayeen cilmigu uu qiimaa ugu fadhiyay nin socoto ah in kitaabka bukhaari laga reebo lagu talagalay. isla imaam khatiib albaqdaadi ayaa maka tegey. wuxuu la kulmay gabadh lo odhan jiray karima bintu axmed almarwasiya oo iyana ka mid ah sheekhii hore ardadii ay ka wada qaateen alkushmeyhani. kushmeyhani waa raawiyat albukhaari ninkii wax ka wariyey. alfiribri baa ah raawiyada bukhaari wax ka wariya. kushmeyhani rawaadiisu ka mid yahay. kushmeyhanigaasaa dariirka iyo kariimiba ka wada warinaya. kariime markuu u tegeyna, kariimi waa islaan gabowday oo 100 iyo dheeraad sano jirtay oo aan guursanin, caalimad ahayd. kariima 5 jalsadood buu bukhaari ku dul akhriyey khatiib albaqdaadi. 5 jalso, 5 fadhi ayuu wuxuu kaga qaatay inuu ku dul akhriyo kitaabka bukhaari oo dhan. alimaam ibn alxajar alcasqalaani ayaa waxaa la weydiiyey sidaa uu sameeyey khatiib albaqdaadi oo kale adigu marna qiraa'o ma samaysay? wuxuu yihi maya, laakiin aniga qiraa'adaydii bukhaari aan sheekha ka qaatay anigu 10 majlis baan kaga qaato leeyahay, 10 fadhi oo qura. laakiin haddii la isku wada dari lahaa buu yihi 10ka fadhi ay xidhiidh noqon lahaayeen sidaa uu khatiib albaqdaadiba tiisu xidhiidhka u ahayd, tiradu way ka yaraan lahayd buu leeyahay. intuu ku qaatay in ka yar ayay noqon lahayd. markaasuu hadalka sii wada wuxuu hi walakin ayna athuraya min athara. laxuhu xidigaa la yidhahdaa xaggay ka joogaan ciidda. waayo khatiib albaqdaadi buu yihi hiraayadi akhriskiisu fii gaayati sixa waljawda buu ahaa buu yihi. waa qiraa'o aada u saxiixa oo qurux badan bay ahayd buu leeyahy, oo loo faa'iideynayana ardayda dhinacyadiisa joogta oo uu maqashiinayay majliska dadka joogo dhami si ay wax u saxdaan. ibnu xajar saxiixu muslimka oo isna inta aan leeg axaadiis ku dhodhowa 5 majlis ayuu 2 maalmood iyo badh ku qaatay. safar buu galay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani. wuxuu gaadhay dimishqa, magaalada dimishq. maktabad buu tegey, waanu soo noqonayay. dabeetana wuxuu is yihi maktabadda tan intaa wada qori kari may sida akhriyo ka faa'iidee. 2 bilood iyo bil thuluthkeed 1/3 yacni waa tiro
ka yar 80 maalmood ayuu wuxuu ku akriyey 100 volume 100 mujalad ayuu wuxuu ku akriyay 2 bilood iyo maxay. waxaa laga yaabaa inaad imika istidhaahdaan xaafid ibnu xajar marka laga waramo iyo wuxuu dhigay iyo wuxuu kitaab ka tegay inaad tidhahdo qofkani mucjisu ahaa. mucjiso kale ma ahayn, qof bini aadam oo caadiyu ahaa, laakiin waktuu geliyey. wuxuu ogolaa inuu wax akriyo. wax akhriskii baa nimanka kan culamo ka dhigay. alxaafid almizi oo xufaadii culimadii waaweyneyd ka mid ah, waa ibnu kahiir iyo sheekhoodii. xaafid almizi waxaa la yidhaahdaa mucjam alkabiir liلطabrani. mucjam alkabiir liلطabrani waa kitaab xadiid ah 25 majaladood. isaga 60 majlis buu ku akriyay baa la yidhahaa. 25 majaladood kitaab ka samaysan ayuu 60 fadhi oo lasoo fadhiistay buu ku dhameeyey. waxay tilmaamaan alxaafid alciraaqi, imaam alciraaqi, musnadka imaamu axmed iminka isagoo 55 majaladood meelahaas iyo 50 majalo ka badan ma filayaabaa la daabacay. musnadka imaamu axmed 30 fadhi buu ku dhameeyey oo ku akriyey. waxaad meeshan ka arkaysaa qiraa'adoodu kow surcada ay lahayd, sida qiraa'adooda u dheereynaysay ay sariica u ahayd. waxaad kaloo ka arkaysaa siday hamiga u hayeen inay wax bartaan, ay ugu dadaalayaan inay wax akhriyaan. waxaad kaloo ka arkaysaa kutubta iyo waxa kani siday u yaraayeen ee qof socota in kitaab dhan laga reebo loogu dadaalayay. mararka qaarkood inay kitaab xifdiyaan ama xejiyaan. ibnu caطaya waxaa laga sheegaa bukhaari inuu 700 jeer akriyay. waxaa laga yaaba haddaynu isweydiino miyuu nagu jiraa mid bukhaari marna dhameeyey? halkaa maktabaddu iska saaran yihin. ibnu caطiyana wuxuu tilmaamaya ibnu caطiya inuu 700 mara inuu akriyey. bal ee culamada barh bay soo naqliyaan, maala almushawiq lilqira'a kitaabka ninka qoray oo waxaan kasoo noqolay nuquushan qaar aan kasoo qaadanayno. wuxuu ka warramaya qaar bukhaari 150 jeer akhriyey, qaar 280 jeer simaacan waa qiraa'an sameeyey, qaar 50 jeer akhriyey, kitaaba 40 jeer la akhriyey. imaam salafi ayaa wuxuu leeyahy waxaan maqlay ibnu طaahir oo leh katabtu صaxiixayna wa sunan abi daawuuda 7 maraat biاlأjra wa sunan ibnu maaja 10 maraat biray. صaxiixeynka bukhaari iyo muslim iyo sunanka abu daawuud 7 jeer baan qoray buu leeyahy, waa lacag ku qaatay. yani dee maطbacada ma jirin wax daabaca. kitaabka markuu sheekhu qoro ee loo baahdo kitaab 10 majaladood 20 majaladooduu sheekh qoraya. qof kasta oo raba kitaabkan inuu helaa ama nusaakhda niman ka shaqaysta qalinkooda wax qoraad u geynaysa ama adaa qoranaya. wuxuu sheekha kani leeyahay صaxiixeynka 7 jeer baan qoray, sunan abi daawud 7 jeer baan qoray, ibnu maajana 10 jeer baan qoray. waa intuu rayi joogo qura. qofka kitaab 7 goor naqliyey intuu ka fahmaad u malaynaysa? 7 jeer dhammaantii min alifihi ilaa yaa'ihi gacantiisa ku qoray. culamadu waxay tilmaamaan qoraalkooda iyo akhriskooda marka la tilmaamayo. ibn aljawsi waxay dhahaan waktigiisa waxba muu dayici jirin. fi lyowm 4 buug buu maalintii qori jiray bay yidhaahdaan. sanadkiina gacantiisa wuxuu ku qoro ilaa 50 volume ilaa 60 volume buu sanad kasta qori jiray. nin ka mida dhashiisii ayaa wuxuu yihi waxaan maqlay isagoo mimbarka saaran cimrigiisa wakhtiyadii ugu dambeysay oo leh labadayda faroode kuwaasiya waxaan ku qoray 2000 mujalad isagoo leh. labadaydaa farood waxaan ku qoray 2000 oo kitaab buu leeyahy. 2000 oo volume ayaan labadaydaa farood ku qoray buu tilmaamaya. moxamed ibnu mukaram almacruuf ibn اlmanduur, ninkan kitaabka luqada le ibnu manduur la yidhaahdo, waxa ay tilmaamaan mukhtasaraadku ka tegey kitaabadu soo koobay. waxaa ka mid ah taarikh ibn casaakir. taarikh ibn casaakir waa 80 volume. 80 volume buu intuu akhriyo ikhtisaariyey.
waxaa ka mid a taarikhu baqdad waxaan u malaynaya isna 50 volyo meelahaasi inuu gaadhayo. waxaa ka mid ah mufradaat ibn اlbayطa, waxaa ka mid ah alxayawaan kitaabkan la idhaha jaaxid qora tiro badan, kitaabo badan waxaa idinku filan dadkani say qoraalkan iyo wax akhriskan iyo cilmiga kan daacad uga ahaayeen. abu sacd الsamcaani ayaa kitaabkiisa la idhaha الtaxbiir fi اlmucjam اlkabiir wuxuu ka waramayaa sheekh la odhan jiray alxusein ibnu axmed اlbayhaqi. alxusein ibnu axmed اlbayhaqi ma aha bayhaqigan imaamka ah, isaga waxaa la idhaha axmed ibn اlxusein, arday bay soo haayeen. alxusein ibnu axmed اlbayhaqi ayaa wuxuu yahay ardaygii imaam اlbayhaqi, imaam axmed ibn اlxusein اlbayhaqi ayuu ardaygiisi ahaan jiray. waxaa la yidhahdaa sheekha kan xanuun baa ku dhacay, dabeetana 10 faroodba waa la jaray, intanba waa la jaray, gumudkaa uu soo hadhay. wuxuu leeyahy waxaan u imi gumudkaasi, gumudadaa hoose isagoo qalin ku haysta oo maalin kasta 5 daaqaat min alkaakid qora buu leeyahy. kaakidki waa waraaq ballaadhana wax lagu qori jiray, 5 ka mida buu maalin kasta wax qori jiray buu yidhi. waa nin gacmu go-an yihiin dhulkii wax lagu qori jiro o dhan, oo intuu qalinka halkan ku qabto adinkuu saari jiray baa la yidhi, dabeetana saas buu u qori jiray. yacni halka ay ka taagnaayeen wax qorta iyo wax akhriska iyo dhegeysiga bale waxa kugu filan. ibn اlqayim baa wuxuu ka warinayaa cabdiraxmaan ibnu taymiya, cabdiraxmaan waa axmed ibnu taymiya, sheekhan ibnu taymiya la idhaha walaalkii weeyaan. imaam ibn اlqayim ba wuxuu leeyahay sheekh ibnu taymiya walaalkii oo cabdiraxmaan baa wuxuu noo sheegay, uu ka warinayaa abihi cabdilxaliima oo ka warinayaa odaygii abulbarakaad ah. abulbarakaad waa awowgii ibnu taymiya, awowgii waa ninka kitaabkan muntaqaha leh, naylulawtaarkan uu sharxayo, sharxa naylulawtaarka ee imaam shawkani uu leeyahy waa kitaabka matnigii la sharxayo odaygii lahaa, sheekhii lahaa. wuxuu leeyahy markuu toiletka galo, xamaamka markuu galo, intuu ii yeedhaa buu kitaab ii dhiibi jiray. wuxuu odhan jiray intaan xamaamka ku jiro, akri kitaabkaas iyo kor u akri aan ku maqle. yani waktiga uu ku dadaalaya inuu wax akriya waa waktigee, yani waktigii kaloo dhami markuu ka buuxsamay, waxa uu tijaabinayaa inta uu xamaamka ku jira ama weysaysanaya ama uu xamaamkaa gudihiisa intuu ku jiro, inaanay intaasina ka lumin ou 2 shaqo wada qabsado, oo ah inuu kitaabkaana dhegaysto, shaqadii uu xamaamka uga baahnaana uu qabto. idan haddaad maqasho culamadii hore mawsuucay ahaayeen iyo kan bay ahaayeen, dee waraggaa waktigooda kaga dadaalay intuu xamaamka ku jiraa inaanay ka lumin, isagoo xamaamka ku jira inuu dhegaysan karo kitaab cilmiya intuu inankiisa u dhiibo inuu akriyo ee uu dhegaysto. waxaa laga yaabaa yani markay kharaa'ibtooda ka waramayaan, waxay tilmaamaan maala alcalaamaة الnaxwi axmed ibnu yaxya almacruuf bilimam thaclabi la odhan jiray naaxiga ahaa. ibn alkhalakan min kitaabihi اlwafiyaat marka uu tilmaamayo sababtii u dhintay, wuxuu yihi salaad maalin jimce ayuu bacd alcasr masaajidka ka soo baxay oo aanuu yaro dhaga cuslaabulayo hore waxumuu maqli jirin, dabeetana wuxuu diidanaa waktigu inuu ka khasaaro, kitaab buu akrinayay buu yihi. isagoo kitaab akrinaya ayaa faras riixay buu leeya oo god ku riday, dabeetana halkan madaxuu wax ka noqday, maalin labaadiina wuu u dhintay buu leeyahy. markaa wuxuu ku qorayaa culamadii qiraa'adu dishay inuu ka mid yahay. waxay soo naqlayaan qolo intay maktabad galay, jaaxid baabay ku sheegaan, habeenkii markuu kutubta wuxuu lacag haysto wax ku iibsaday wax walba gurto, kuwa waraaqinta kutubta qora ayuu habeenkii ka kiraysan jiray. habeenkii markay seexanayaan aanay wax qoraynin inuu isagu meesha dhex joogo. wuxuu u dhex joogayaa intaa habeenkii uu ka maqanya inuu kutubtan sii akriyo. jaaxid waxay idhahdaan markii dambe maktabadiisaa ku duntay oo dishay, kutubtiisu u dhintay bay idhahdaanba. markaad aragto waxay ka waramayaan ama ibn اlacraabi ayaa waxa la yidhi nimay saaxiib ahaayeen, axmed ibnu maxamed ibnu shujaac ayaa usoo diray wiil oo yidhi waan kuu baahanay kaalay. markaasu wuxuu ku yihi qolo reer miya baan acraabaan la yaro sheekaysanayay, markaan dhammeeyo ayaan kuu iman doonaa. dabeetana inankii usoo diraa ku noqdo wuxuu yihi
wadaadkii cidina lama fadhinin anigu markaan u galay laakiin wuxuu yidhi qolaa caraaba ila joogto oo markaan dhameeyo arrinkoodaan kuu imanaya markii uu tegey bu wuxuu yihi war cidda kuu timi inankii wuxuu igu yidhi cidiba lama joogina maxay ahayd dabeetana gabaygan buu tiriyey uu leeyay lana junasaau ma namalu xadiiثahum alibaaء ma'munuuna giiba wamashhada yufiidunana min cilmihim cilma maa madى wacaqla wata'diiba wara'ya musadada bilaa fitnati tukhsha walaa suuءi cishraةi walaa yutaqى minhm lisaana walaa yada fain qulta amwaat falaa anta kaadibu wain qulta axyaaء falasta mufanada gabay buu tiriyey uu leeyahay qolaa jirta buu yihi mar kasta noo waranta oo warkooda aanan ka daalin oo cilmiga noo sheega iyo cilmigii iyaga dadka ka horeeyeyba caqli iyo adab iyo ra'yi fiicanna noo kordhiya oo aan dhibna nagu haynin oo wax fitnaan aanan uga baqaynin carab wax dura iyo gacan wax dhibto toona aan lahayn kuwaasaanu la fadhinay haddaad idinku tidhaahdaan meyd bay ahaayeenna run baa sheegteen buu yidhi oo been maydan sheegin haddaad tidhahdaan waa noolyiinna war laydinku diidaya ma yacni kutub baan haystay buu leeya waxbaan akrinayay ibnulmubaarak ba waxay idhaahdeen cabdillahi ibnulmubaarak imaamkii la odhan jirayba waxaa la yidhaha had iyo goor cidlaad joogtaaye maxaa cidlada ku dhigmaa dadka u timaadadoo sheekaysid aad buu uga xanaaqay baa la yidhaha markaasu wuxuu yihi maanaa keli jooga ma ninkayga nebigii iyo saxaabadii la jooga bay leedin keli buu joogaa yani nebi maxamed warkiisii baan akrinayaa buu leeyahy nebi maxamed baan dhegeysanaya calayhi salaatu wasalaam oo hadalkiisii aan akrinaya iyo saxaabadiisii baan dhegeysanaya markaasa ay leedin buu leeyahy cidlaad joogtaaye maad noo timaadad aan kuu sheekayna akhwati fi lcaqiida qiraa'adooda iyo akhriskoodu aljaaxid baa wuxuu leeyahy waxaan maqlay alxasan allulu ninkii la odhan jiray waa abi xaniife saaxiibkii oo le buu yihi 40 sannadood maan seexanin maalin iyo habeentoona ilaa iyo kitaabku isagoo laabtayda saaran mooyaane waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dadka hore waktigooda ay iska haysteen oo wax mashquuliyo badan baan jirin aan culimadii mucaasiriinta ahayd ba wax ka tilmaamno alimaam jamaaludiin alqasimi waa tafsiirkan maxasin ta'wiilka la yidhaahdo sheekha qoray tafsiir ballaadhan oo mujaladaad badana waa sheekh reer dimashiqa buu ahaa kitaabkiisa la yidhaha alfadl mubiin wuxuu qoraya waqad itafaqa lii bixamdihi tacaala ilaahay mahadiya waxaa ii sugnaatay oo ii dhacday buu yihi صaxiixu muslimka bitamaamihi riwaayatan 40 maalmood baan ku akriyay buu yihi kitaabka صaxiixu muslimkaa dhammaantii sunan bnu maajana dhammaantiisna waxaan ku akriyay buu leeya 21 casho muwaطau imaamu malikna 19 cashaan ku akriyay buu leeyay kitaabka ibnu xajar rijaalka tahdiibu tahdiibkana anigoo weliba isaga tasxiixinaya meelihii qalamku uu gafay xaashiyana u samaynayo yani taqriiraad kalena kusii qorayana isna 10 maalmood baan ku akriyay buu leeyay ee fadac canka ayuha laa'imu kasala waar kuwiinan caajisiinta oo canaan badnida iska daayo waxris calaa casiizi waqtika bidarsi اlcilmi wa ixsaani اlcamali buu leeyay waar waktigiina waxaa ku ilaalisaan waktigiina casiiska ah inaad waxbarataan iyo camal fiican inaad samayso waktiga ku bixiya buu leeyay yani waxa uu tilmaamaya صaxiixu muslim iyo ibnu maaja iyo muwaطa imaamu malik iyo tahdiibu tahdiib marka la isku daro 4taas kitaabe waaweyn oo mid waliba mujaladaad ka kooban yahay marka la isku wada daro wuxuu ku akriyay 40 maalmood oo meela iyo 21 iyo 19 waa 40 kale 80 maalmood iyo 10 casho tahdiiba 90 maalmood waa 3 bilood buu ku dhameeyey intaasoo kitaab iyo intaasoo mujaladooda uu tilmaamaya bale haddaan mucaasiriintan soo dambeysaba sii tago sheekh cali طanطaawi raxmat ullaahi caleyh wadaadkii asligiisa waa misr min طanطa laakiin reer suuriyu ahaa bergii dambena sacuudigu deganaa mudakaraadkiisa wuxuu qoraya waliba 2 gooroo kala dambeysa aan tilmaamo faana alyowm wa ana bilams kuntu fi sigari amdi wuxuu leeyahy anigu maanta iyo shalay
iyo markaan yaraaba waxaan ahaa buu leeyahay maalintii inta badan nin guriga jooga oo akhriya maalmaha qaarkood ilaa 300 oo bage baan akhriyi jiray buu leeyahay haddii aan sidhaahdo beenta iska ilaali buu yidhi anoo huba mucadalkaasi inuu ka yaryay intii aan akhriyi jiray isku celcelin maalin kasta 100 bage baan akhrinayay buu leeyahay waktigu markaa qoraya waxa weeyaan laga bilaabo buu yidhi 1340kii ilaa 1402 2 sannadood buu wuxuu leeyahay maalin kasta waxa aan akhrinayay 100 bage kadib uu sii noolaa doctor maxamed muuse shariif isaguna wuxuu soo naqlay ka soo naqlinayaa kiisa dambe ah 70 sannadood inuu sidaa u akhrinayay 70 sano oo sanadkiiba 354 hijriya uu yahay oo maalintii 100 bage oo akhrinaya ku dhufo waa 2 milyan iyo badh bage yani waa nin caalima muslim hadda noola oo le waxaan akhriyey in ka badan inuu akhriyay 2 milyan iyo badh 2.5 milyan bage uu akhriyey waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo de haddaa gurigunbu iska fadhiyo wuxunbu akhriyi jiray shaqadiisa kalena u fiirso 3 majlis 3 guddi buu ayuu ra-iisulmajlis u ahaa kuliyadda jaamacaddana waxbuu ka dhigayay muxaadaraad buu ku lahaa secondary schoolka qeybta ragga iyo qeybka dumarkabana waxbuu ka dhigi jiray yani culamada tawaaducooda u firsay inaga waxa laga yaba ninka professor noqday jaamacadda taga meel ka hooseysa inaanu aqbalin wax ka sheeg waa professor ilaa ninkani jaamacadda macalin buu ka yihi haddana secondary school hablaayo secondary school inama ah labadaba waxbuu ka dhigaa khudbadda jimcana wuu akhriyaa muxaadaraadkana wuu jeediyaa idaacaddana duruus joogtaa buu ku leeyahay jaraa-idka soo baxana waa kaatib maalin kasta maqaal qora intaasoo shaqo isagoo haya oo maalin kasta kaatib journalist oo maqaal qoraya ah idaacadda maalin kasta barnaamij kuloo soo daynaya ah oo barnaamij idaaciya leh muxaadaraadka masaajidda iyo dhulka laga akrinaya jimcaha khudbad leh 2 iskuul iyo jaamacad 3daaba wax ka dhiga 3 urur guddoomiye ka ah ma 3 gole guddoomiye u ah ayuu haddana mucadalkiisa qira'a intan u ahaa 2 milyan iyo badh u akhrinayay ta macnaheedu waxa weeyaan culamadii hore haddaad maqasho waxbay barteen ama xifdigooda fiicna ama caynkana dad wax akhriya waxna qora bay ahaayeen dad waktigooda qiimeeyey bay ahaayeen alfaribri raawiga imaam albukhaari kitaabkiisa ka wariya wuxuu leeyahy imaam albukhaari baan gurigiisa ugu tegey anigoo la jooga buu yihi buu habeen qura 18 jeer buu kaco faynuuska shito wax qoray buu yihi yani bukhaari kitaabka bukhaari un la yidhaahdo dabeetana dadku ay u qaataan qof iska mucjiso ah oo cerka laga soo tuuray oo isagoo aan dadka u ekayn bukhaari qof bani aadam oo caadiyu ahaa laakiin maca xifdihi isagoo aaya fi lxifdi ahaa ayuu haddana wuxuu ku bixinayey intuu seexdo ayaa wax ku soo dhacaan ama waxbuu xasuustaa wuu soo kacaa wuu qoraa waxbuu baxdiyaa waxbuu qoraa habeen quro aan la jooga buu leeyahy ayuu 18 jeer nalka dib u shitay culamadii muslimiinta hore iyo dadkii muslimiinta hore markaa fii casrihim cusuurtan aynu ka waramayno yurub waa cusuuri dulaamkeedii waa markii ay medieval periodka ku jirtay maktabadooda ugu weyn 170 kitaab baa yaalay adiiradii ugu caansanayd in wax la akriyo daayo wax la akriyaaba ma olin xogaagaa yare buugagto injiil ka warramayaa yaalay xataa falsafadan greega imka ku faanaan may soo gaadhin waayo falsafada greego can ariiq alandalus bay marka dambe uga timi kadib bay dib ugu noqdeen asalkeedii iyadoo caynkaasiya ayaa caalamulislaam ee maktabaadka caadiga ee yaalla waxay ahayn bilmalaayiin waxaasoo milyanina madbacad quro daabacday ma jirtay gacan bini aadan baa qortay yani marka la eego qurطaba marka la eego maxaa la idhaha qaahira marka la eego dimashq marka la eego baqdad bale marka la eego casrigii dambe waxay noqotayba waxay madaxdu isugu faanto
oo xataa qiraa'aadkan gharaaibta ragga laga soo naqliya madaxda ka mid a alma'muun oo kalea ka mid a andalus kuwii haystay umawiyiintii qaar ka mida yani xataa madaxtooyada caynkan wax looga akriyi jiray caalam alislaami markuu sida tan wax u akrinayay wuxuu ahaa dad hogaamiye fi kuli اlfunuun waxay ahaayeen mawsuucaat culamada joogtaana dad wax kasta ka jawaabi kara waxay ahaayeen dad waxay qorayaan khatiib ilbaqdaadi markaynu nidhaahno kitaabu intan ku akriyey de haddana wuxuu qoray ma min fanin fi cilmi اxadiiث ilaa kutubu ka leeyahy ilaa la yidhahdo ciyaal bay dadku u yihin bale taarikhu baqdad magaalada baqdad taarikhdeeda qura ayaan filaya inuu konton majalo ka qoray inuu ka waramo baqdad iyo wixii caalim soo mariya wixii kitaab lagu qoray taarikhu baqdad inuu ka waramo ayuu konton majaladood konton volume ka qoray caalam alislaami waktiguu horu marsanaa waxay ahayd waktigii qiraa'ada iyo akhrisku jirtay hadda waxaa jira waxa weeyaan labaduba waa lumeen wax qorkuna wuu lumay haba dambeeye wax akhriskiiyo waxbarashadii baa luntay waxaa laga yaabaa ragga halka jooga masaajidka in labaatan sano la fadhiyay 20 sano waa in khabiir lagu noqdaa bay ahayd maca dalik aqoonta waxoogaa la dhegedhegeeyey laakiin waxaa aada u liita oo aan marnaba dadka muslimiinta ee dambe ka faa'iideynin waxa weeyaan waa waktigii dariskan waxaan uga dan lahaa un inaan tilmaamo fursad baa haysataan maanta haddii cilmiga loo lugeyn jiray ama loo daali jiray ama hadalxifaad baa wuxuu tilmaamayey 2 jeer mise 3 jeer buu leeyahay ibnu xibaan caalim alxadiid ayaan kaadideeda u cabay buu leeyahay markuu haraadee wax kale oo cabo waayey ayuu leeyahay baan kaadideyda cabay aimo kale waxay tilmaamayaan kulaylkiisay u socdeen in ay kaadi dhiig kaajeen waxaana waxay ahayd cilmi raadin la raadinayay raggan cilmigaa qoray ama akrinayay lug bay ku ururiyeen imaam albukhaari bukhaaru ka yimi bukhaari waa samarqanda agteeda samarqanda waa duwalkan yaryar imka raashinka ka go-ay halkaasuu lug ka soo bilaabay lugtu halkaa ku yimi ayuu caalamulislaam oo dhan ku maray wixii cilmi lagu hayay baqdaad intaasoo jeer soo galay dimashq intaasoo jeer galay qaahira intaasoo jeer galay makiya madiina intaasoo jeer galay waxaasoo dhan waa la lugeynayay cilmina la raadcaynayay lug baa lagu wada maray iyadoo cilmi la raadcaynayo aan mar qura ahayn iyo 2 iyo 3 intaasoo jeer loo kala lug qaadoo la maray nin hal xadiid ayaa intaa loo lugeyn jiray maanta se cilmigu intuu batay oo ayi fanin aada doonto kitaabkiisu iska jabayo la gadan karo culamada hore hantidu waa ku yarayd oo waktiga kan ay iyagu wax qorayeen ama baadhayeen hantidu way ilaa xad qaarkood maala sulayman ibn cabdilxamid alxamawi alxambali waa alxaafid ibn xajar alcasqalaani sheekhiisii ayaa waxaa islaamihii ka dacwoodeena waxaa la yidhi lacagtii ina soo gashay oo dhan dee kutubun baad siisanaysaa kutub baad iibsataaba ayaa lagu dacayday ama lagu maagay gabay buu tirinaya uu leeyahay waqaa'ilaة anfaqta fi اlkutubi maa xawat yamiinuka min maali faqultu daciinii lacalii araa fiiha kitaaba yadulunii liأkhdi kitaabii aamina biyamiini gabay buu tirinaya uu leeyahay waxay yidhaahdeen wixii ku soo galaba midigtaada wixii aad ku heshaba kitaab baad siisatay anna waxaan ku idhi buu yihi daaya waxaa la arkaa waxoogaa kitaab aan ka bixiyey inuu noqdo aakhiro ka sababa in kitaabkayga midigta layga siiye axadulaimana wuxuu ka waramay iyadoo xaaskiisu ag joogto wuxuu ka waramay nin kale oo ay saaxiib yihiin oo dhowr dumara qabay oo iyo inaanoy yani duruufaadkiisu ka waramay islaantiisu halkan fadhidaa kasoo boodo waxay ku tidhi 3 inaad ila guursato waxa igaga dhib badan bay tihi kutubtaa ku ag taalla yani kitaabadaadaa ka badan bay leedahay dumarka daraahirta la isla qabo dhibaatada iga soo gaari lahayd kitaabadaada dhibaatada iga soo gaarhisa yani mudmin bay ku ahaayeen inay wax akriyaan ama wax qoraan laakiin taasi waxay fudaydisay
inuu cilmigu noqdo wax dhaxalo ay ka tagaan. waxaa kitaab maanta aad aragtay caalamulislaami la taabacay iyo in laba laabkeed ka badan oo aan la taabicin gacan baa lagu qoray. waxaa raggii gacan ku qoray waxaana waa la akhriyi jiray, bale waa la qaybsanaa, korkaa laga hayay. haddana dhibtu waxay ka taagantahay iyadoo kitaabku meel walba uu yaallo, la fudaydiyey wasaaishii wax lagu baranayay, oo laga yaabo maanta ayi kitaab aada u baahato inaad netka ka heli karto, ama isagoo bilaasha ama isagoo wax yar lagu iibinayo, oo inaad akhrido ama member yar aad ka noqonayso ixda almaktabaat oo aada helayso wixii aada uga baahato, kitaab aad heli karayso o dhan. maanta waxaa laga yaabaa kitaab kastoo aada u baahato, hadday kuwani hantidooda o dhan siisanayeen ama u lugeynayeen ama dhibtaasi ay usoo gaadhaysay, adigu seconds baa lagu helaya. waxaa kaloo la mid a aqoonta inta la fudaydiya maanta dhammaanteed iyadoo duuban ama online ama kana baa la wada helaya. laakiin hamu nnaas baa daciifay oo waktigu maanta badhna wuxuu ku lumaa t v baa lagu bixiyaa, badhna maqaaxiyo hebel soo booqiya halkan mar buu ku baxaa, badhna wax bilaa macnaa buu ku baxaa. cimriga dhammaantii wuxuu ku dhammaaday markaa meel cidlaha. cimrigii oo ah raasamaalka quri aad haysatay wuxuu ku dhammaaday meel aan waxba ka jirin. haddaynu rabno waxaynu rabno inaynu noqonno, waxaad noqon kartaa maanta fursadda la haysto adoo gurigaaga jooga, adoon gurigaaga meel lauga bixin, ayaad caalim diineed iyo mid science iyo mid kaa doontaba noqon kartaa. wax walbana min alifihi ilaa yaa'ihi, biayi mustawa aad joogto meel aad ka bilowdana aad ka helayso. from zero fanni ah ayaad bilaabi kartaa. funuunta qaar baa anagoo zero ka ah iska dhegaysana harvard university lectureska ka baxo free ugu jira. haddaad dhegaysato si caadiya baad u baran karaysaa. siiba dadkiina north america jooga, waxaan is leeyahay aakhiro wax badan ilaahay uu idin weydiin doonaa, waayo wax fursad badan oo aan dadku haysanin, internet bandwidth ka ballaadhan kuwa caalam kale lagu isticmaalo, fursad aada u tiro badan oo waxbarasho ay agtiina taalla. laakiin waxaa yar dadka inta ka faa'iideeya. inta yaryari ka faa'iideyn mayso haddaanay intiina waaweyni tusaale aydan u noqonin. haddaad adigu tusaale ugu noqoto xamaalasho iyo taxi driver ama gurigoo la fadhiyo unoo caydh la qaato, haddaad adigu tusaale ku noqoto, ka yarna wuxuu le intii odayguba qaban jiray amba waa qaban karaaye maxaa ilu goynaya. laakiin haddaad adigu tusaale u noqoto, walidalik ba culamada muslimiinta hore qaar baa waxay qoraan kutub ay ka waramayaan kuwii waxbarashada bilaabay bacda alarbaciin. kitaab bay ka qoreen, yani rag waaweyne wax ku bilaabay. culamo aada u badanoo maanta macruuf oo la yaqaano ayaa rag waaweyne ku bilaabay. ibn alxazam waxay dhahdaan isagoo dhowr iyo labaatan jir oo siyaasadda ku jiro oo nin weyn oo siyaasi ah ayaa waaxid min alqariib uu dhintay, masaajidkaa la keenay, masaajidku soo galay, dabeetana uu iska fadhiistay. meesha fadhiya wuxuu yihi masaajidda lama fadhiistee kactu ka hortoo sunnayso. uu iska sunnaystay, labadii ragcadood buu tukaday, xabaashii baa lasoo aasay, uu soo noqday, goor casr dabadiyuu haddana soo galay, 2 ragcadood buu tukaday. mid kaleo meesha fadhiyaa yihi war casrka dabadiisa waxba lama tukaday, ka fadhiiso masaajidka. ibnu xasam markii horena wuu fadhiisto, waxaa la yihi war lama fadhiistee tuko. markii dambena wuu tukaday, waxay dhahdeen war waktiga waxba lama tukaday, iska fadhiiso. dabeetana markaasu wuxuu yihi warya fiqiga magaalada yaqaana, waxaa la yidhah fulan. ibnu xasam halkaasuu ka bilaabay inuu wax barto, isagoo dhowr iyo 20 jir 26 jir meelahaasibu ahaaba la yidhahdo, nin siyaasiya oo wasiir soo noqday oo yani dowladda ku jiray, ayuu wuxuu dib u bilaabay inuu ardaynimo bilaabo. culamo badan oo muslimiin ah, xataa axad alculamaa la tilmaamo azhar shariif inuu haysan jiray, sheekh alazhar alimaam alakbar noqday, 54 jir buu ku bilaabay bay yidhahdaan waxbarashada. markii dambena ilaahay baa cimrigii u dheereeyo 90 iyo waxoogaa buu gaadhay, ilaa iyo uu ka gaadhay inuu noqdo sheekh alazhar. culamada muslimiintu ciday ka dambeyso ee sheekh alazharka loo qoran jiray waktigii. idan wakti aada cidlo ku bixinayso ayaad wax ka faa'iideyn kartaa. walidalik baa culamadii hore waxaa la hayaa rag badan oo markay dhimanayeen, abi xaatim araazi inankiisa ibnu abi xaatim wuxuu leeyahy isagoo sii dhimanaya ayaan weydiiyey hebel cabdilghafaar ma saxaabi buu ahaa,
markaasuu madaxa i raxay buu yihi, markaasaan ku celiyey buu yihi, waa u dhimanaya odayga, markaasuu bu yihi taabicu ahaa taabici. yani qof dhimanaya masale la weydiinayaa say cilmiga ugu dhigayeene dadka ugu furaayeen. bayruni isagoo naftu kasii baxaysaan inuu soo galay, markaasu wuxuu yihi warka halkaale masaladii miiraadka dhaxalka ahayd caynkaa ku saabsanayd ii sheeg. waxaa la yidhi dhaxalka iska daayo imika way ku haysataa iska shahaado. wuxuu yihi war anoo garanaya inaan dhintaabaa dhaanta, anoo jaahila inaan dhinte ii sheeg. waa loo sheegay. markuu ka baxe uu dhexda sii socdo ayaan baroortii dumarka dib u maqlay buu leeyay sheekhay, dib baa ugu soo noqday isagoo dhintay. yani waktigaas say ugu dadaalayeen xataa iyagoo saaran sariirta geeriday waxbaranayeen. inaguna qofka oo caafimaad qaba oo miyir qaba oo waxba qabin ayaan isku dayin inuu barto. waxyaabaa kasii yaab kale waxaa kamid ah maalan waxaad arkaysaa qof aan isaga qur-aanka akriya aqoonin, salaadiisuna inay usaxantahay ay ku adag tahay, oo ilmo yar wado qur-aanka geynaya. ilmaha yar inuu qur-aan dhigtaaba waajib kuma haday waajib kuga hayte. intuu ilmaha qur-aanka geeyabu isagu maqaaxida ufadhinaya, inta loo dhigayana sheekeynaya marka loo dhameeyo ayuu imanaya, markaasuu ilmaha kaxaynaya. labada isagay ahayd waajiba inuu fadhiisto oo dhigto. yani waxaad samayn karayso tiro badan leh ayaa maanta dayacmay. طulaabulcilmiguna sida aan sheegay dambe hadday wax dhegaystaanbana waa cilmi dhagoodkay dhegaystaan, iyana cid wax qorata ama wax naqlida ama wax reebta waa yartay. qofku hadduu wax qorayo wax naqlinayo, sheekha wax akrinaya waxaa laga yaabaa dariska markuu soo diyaarinayey 10-20 kitaab inuu soo baadhay. 20 kitaab wixii uu kasoo doortay ee uu is yidhi faa-iiday u yihiin inuu kuu soo naqliyo uu kuu soo sheegay. inaad 20kii adigu akrida hadhow aad tidhahdo masaladana dee waan fahmay markaan baadhaya hadhow baa kutubta ku noqon doonaa. waxaa laga yaabaa inay kaa qaadato 4 saacadood 3 saacadood inaad soo diyaarisaa. laakiin haddaad markuu sheegayo aada ka qorato, waxay suurtogalaysa 3 saacadood 4 saacadood waxaad soo baadhi lahayd inaad si fudud aada u reebi karto ama aada u taqyiidin karto. walidalika ayuha alikhwa, waxaa laga yaabaa dadka badhina isleeyiin war wadaadku daraskan maanta akriyay de waa kuwii yaryarka loo akriyi jiray. lakiin anigu waxaan isleeyahay waa daras loo akriyi karo qof kastoo muslima. qof yar iyo qof weynaba wuu u baahanyay inuu waxbarto oo muslimi. ummadda muslimiinta ahna inta ay waxbarataa unbuu horumarkeedu ku xidhnaan doona. inta ay waxbartaana waa markay waxbarashadu wax caada a inaga noqoto, wax noloshaada yowmigaa kamid a. inaad shaqo tagtaa noloshaada yoomiga ku jirtaa, inaad wax cuntaa noloshaada yoomigaabay ku jirtaa, inaad musqusha gashaa noloshaada yoomigaabay ku jirtaa. qofka muslimka waa inay noloshiisa yoomigaa ku jirtaa inuu waxbartaa oo waxbarashadiisu ay kortaa oo hore u socdaa. wallahu aclam billahi towfiiq. asalaamu calaykum. alaykum salaam. aqoonta horta way kala muhiimsantah. uminimo aan loo dul qaadan karin baa jira. waxaad arkaysaa maanta nin laga yaabo inuu jaamici yahay, scholar yahay, PhD sito oo aan weyse saxaynin ama salaad saxaynin, oo runtii waa uminimo tii u liidatay, waa illiteracy-gii ugu liitay. waayo qofku janno iyo naar wuxuu ku kala dooran lahaa ama uu ku shaqaysan kari lahaa aakhiro uu ilaahay ugu dhowaan lahaa inuu illiterate ka noqdo, uu garan waayo oo uu caado kaga dhaqmo. farhungurina inuu siiyo ilaa uu doctorate ka qaadanayo oo wakti iyo lacag iyo juhd iyo caqliba u geliya, waa wax aada u liita. macnaheedu maaha inaan caayayo ama maagayo inuu doctorate soo qaato ama waxbarto. waxaan caayaya maagaya waxa weeyaan inuu khasaareeyo inuu baran karo wixii uu baahnaa. idan uminimadu, nabigu calayh الsalaatu wasalaam nin baa isagoo masaajidka fadhiya soo galay. waa saxaabi nebi maxamed arkayay, saxaabadu say u tukanaysa arkayay, dhaqankaa soo gaadhay. dabeetna salaad buu tukaday.
markuu dhameeyey buu nebiga u yimi uu salaamay. nebigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam maa tukanin oro tuka buu ku yihi. ninkii wuu ku noqday mar kaluu tukaday waa dhameeyey. nebigu u yimi alayh الsalaatu wasalaam. nebigu wuxuu ku yihi maa tukanin orodoo tuko salli fainaka lam tusalli. waa ku noqday ninkii mar saddexaad buu soo tukaday. waa soo noqdoo nebigu u yimi dabeetana waa salaam. wuxuu nebigu mar saddexaadkii ku yihi salli fainaka lam tusalli. waxba maa tukana ora tuko. ninkana waa saxaabi nebi maxamed buu ag joogaa, saxaabadii kale u ag joogaa, wuu arkayaa ficilka iyo waxa la samaynayo, haddana waxbaa qaldan u baahan inuu saxdo. isagu markii isku dayey dadaalayna way saxmi weyday. markaasuu qirtay inuu waxbarasho u baahanyay. nebigu intii hore uma juuqin, wuxuubu yidhahda tuko salaad ma ahay intaa tukatay. markaasu wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiyo ka badan garan maayo ee ii sheeg waxay bar. markaasuu nebigu wuxuu baray alayh الsalaatu wasalaam si uu tukan lahaa. hadaad leedahay waxbarasha xaggay ka bilaabantaa? kow waxay ka bilaabantaa waxaad aakhire ku badbaadi lahayd. acyaanka fardulcayn wixii kugu ahaa ayaad aakhire ku badbaadi lahayd. inaad tawxiidkaaga saxato, inaad salaadaada saxato, hadaad baacmushtarta inaad baacmushtarkaaga saxato, hadaad reer leedahay reerka sida loo qabo inaad saxato. noloshaadan aad ku nooshahay waxa islaamku uu ka qaba ee janno iyo naar lagu kala gala inaad saxato. inaad taa saxataa de waxay u baahan tahay cid ahli cilmi iyo wax ku bari karta inaad ku xidhanto. masaajida iyo dhulka wax lagu baran karayo inaad tagto. haddii bidaayaadka hore laguu dhigo dee waad meelaha kalena waad kasii baran kartaa. nadka iyo wixii la halmaalay waad xataa maanta dee nadka waxaa ku jira macalin markaad doonto aad aamusiinayso, markaad doonto aad ka hadlinayso aan cadhoonaynin oo xanaaqaynin oo ku diidaynin oo wax kasta. waa dhib waa yaro leeyo tarkiiskaa ka lumo dadku inta badan. dumarkaa u badan qolada bahlada dhegeysto iyadoo kijada ku jirto un bay shidahadhan waxay tiraa kitaabkaa waa dhameeyey bariiskaanay karinaysa kijada agteedu buu ka baxayay. laakiin haddii si caadiya uu qofku tarkiis siiyo uu usoo jeesto oo uu ku talagala inuu waxbarto waxbuu baranaya. marka waxaan uga jeedaa waxbarashada rasmiga ahi kow furuudal acyaanku ka bilaabantaa. wixii aad aakhiro lagu weydiinaya ad ku badbaadisa inaad barato, kadibna wixii kale ziyaada inaad barato. تفضل عليكم السلام. aqoontu qofba meel bay u joogtaa, qofbana meel baa looga bilaabaa. waxbarasha gebigeedba saddex shay horta haddaad hesho waxbaad baran kartaa, wuxuu doonaba wuxuu ha ahaado. saddexda shay ee waxbarashadu aanay ka maarmin waxa weeyaan curriculum, manhaj aada raacda inuu jiro. haddii aad maalina bukhaari in kasoo dhegeysato, maalina tirmadiga dhegeysato, maalina riyaad saalixiinka dhegeysato, weligaa wax baran maysid. waa inuu jiraa tasalsul manhaji oo la raaca. cid kastoo dunida fani kasta wuxuu doonaya ha noqdo, wax kastoo bini aadamku uu ku talagalo inuu bartaa, manhaj la raacaa jira, silibas la raaca waa inuu jiraa oo halkaana ka bilaabma xaggaana aad ku dhamaynayso. waa marka koowaad. wakti muxadadina waa inuu jiraa. waxa iska madaxa furan le lama barto. hadaad tirahdo waad baran doontaa ee maalina dhegeyso maalina kasoo noqo waxba baran maysid. waa inuu time fixida yeeshaa. kitaabka kan waa inaad ku tala gashaa maalan 2 bilood inaad ku dhigato. waa inaad 2 bilood saad ugu dhigan lahayd waa inaad jadwalkeedii dejisaa. thats why iskuullada iyo jaamacaadka iyo waxa kan loogu sameeyey teeramyada iyo waktigaaba inuu qofku intaasoo chapter ama intaasoo bog u dhigto. hadduu iska furan yahay waad caajisaysaa. maalin waad bilaabaysaa, maalin waad joojinaysaa, maalin waad kusoo noqonaysaa, maalin waad ka tegeysaa. wuxuumaad arkaysaa un iyadoo sanad kaa tegayo aad weli buuggii dhamaynin. marka waa inuu curriculumku wakti go-aan leeyo aad ku tala gashay inaad barato. ka saddexaad waa macalin ama murshid ama mushrif waxaa doonta dheh inaad leedahay cid guidance ku siisa. waxa haddaad bilow tahay waxaad u baahan tahay macalin rasmiga. haddaad waxoogaaga hore soo baratay waxaad u baahan tahay cid guidance ku siisa, markaa kuu tilmaamto kitaabada aada marayso, waxa aad adeegsanayso,
wixii kaa qaldamo ama aad fahmi kari weyda ama aad saxi kari weyda aad kula soo noqoto kuu saxa. waayo macalinku 3 shayba uu kuu qabanaya. waktiga wuu kuu koobaya oo waxaad adiga fahamkeeda iyo akhriskeedu saacada kugu qaadan lahayd buu rubuc saac kuugu sharxi karaya. 2 wuxuu kaa ilaalinaya inaad si qaldan wax u fahamto. waxaa laga yaaba adigu intaad masalada akhrida inay isku kaa dabarogto aad si kale u fahamto waxa meesha ku qoran waxaan ahayn adigu aad fahamtid. laakiin haddaad macalin leedahay wuxuu kaa saxaya inaad si fiican u fahamto. 3 waxaa laga yaabaaba inaad fahmiba kari weydo. macalinku wuxuu fudaydinayaa inuu ku fahamsiiyo. idan wax badan aad u baahanto macalin keenaya. haddaad markaa bilowga joogto kama maarantid macalin rasmiya. haddaad meel hore joogtana waxaad u baahan tahay cid guidance ku siiso aad kolba wixii aad akhrisanaysay ama aad waday ama aad baadhaysay aad kula noqoto wixii kugu adkaada. 3daa shay haddaad isla hesho qof kastaa wax uu baran karaa markaa. halkaad ka bilaabaysaa halkii wax kuu joogeen bay ku xidhantay. macalinkaaga markaa u taga aad rabto inaad wax ka daraasayso isagaa ku qiimeyn doono ku odhan doona waxaad u baahan tahay waxa inaad barato ee halkaa kasii soco. alaykum الsalaam. luqadda carabiga ahi qeybo ka midi dee salaadu ka asixi mayso haddaanad af carabi ku hadlayni oo qur-aan baad akhriyaysaa kan baad akhriyaysaa dee kaama asaxayso. haddaad rabto inaad dee si fiican wax u fahamtana wax waliba luqada asalkee uu ku qoran yahay baa loo tagaa. luqaadku sidoodaba laakiin waabay baari yar ahaayeen imika maaha. waxaa laga yaaba dadka inta ugu badan inay halkan yimaadeen iyadoo ingiriisi aqoon soo maaha. course 6 months 7 months buu bartay dabeetana wuxuu noqday qof ingiriisiga saa caadiya uga hadli karaa. maanta luqaadku maaha barrier. af chinese haddaad rabto inaad barato just a course of 9 months ayaa kugu filan. adigoo luqada ka umiya haddaad jaamacadda timaado dee intensive course baa lagu siinaya kadibna jaamacaddaad fadhiisanaysaa. maanta haddaa idinku halka jooga laydin ihahdo jaamacad jarmala laydin diray jarmal baa wax ku baranaysaan intensive course yaroo 9 months baad geli dabeetana jaamacaddaad fadhiisaan. marka luqada wax weyn maaha. afku doonaba ha noqda ma carab ha noqda ma ingiriis ha noqda ma qofku hadday wax kaga xidhmaan luqo tii hun gurigu nagaga xidhmay dee wada baraneed jannada ku xidhantay maynan baran karaynin. ya yani luqadu problem weyn maaha qofka bini aadamka inuu luqa bartaa. luqaadka caalamka maanta aad bay u fudud yihiin. qofka u xidhxidha un language-yada kamida kuu doonaba ha noqdee inuu wax ka bartaana si fudud buu u baran karaya. waxaan tilmaamnay cilmigu kutubta ku jira mafaatiixdeeduna waa biyad اlculamaa. aqoon-yahankaa furahaya culumta badh iyagu inaad qof carabkii kala kulanta mooyaane bug lagama qaato. maalan qur'aanka bug lagama barto waayo waxaa la rabaa qaabka wax loo akrinayo waa pronunciationkuna maaha wax bug laga dhigtay waa wax carabkaaga la toosinayo.
marka markay noqoto qur-aan inuu qofku baranayo soo akrinayo dee waa inuu cid kala kulmaa. culumta kale markay joogto isku wada mid maaha culumtu, qaar qiraa'adooda fududay baa jira, laakiin cilmi kasta waxay yidhaahdaan basiga waa inaad cid kala kulantaa, oo cilmi kasta wuxuu leeyahy musطalaxaad u gaara, qawaacid u gaara, oo haddaanad basigaa si fiican u fahmin ay adag tahay inaad hore u socon karto. marka sababta ay u leeyihiin culamadu cilmigu kutubku u yaalla, laakiin furayaashoodu waxay ku jiraan bay dhahaan biyad اlculamaa. waa inaad furihi heshaa, markaad furaha hesho wixii ka dambeeya ayaad kori kartaa, socon kartaa. filaya waqtigii salaada gaadhay. subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaغfiruka wa atuubu ilayk.